telefishanka caalamiga Som News TV oo booqday degmo xuduudeeda Togwa Jaale ayaa waxaanu halkaasi iyagana kula kulanay mas'uuliyiinta waxbarashada ee degmadaasi iyo mas'uuliyiinta caafimaadka oo ku jira hawl maalmeedkoogii iyagoo halkaasi telefishanka waraysi kooban ku siiyay isla markaana hambaliyo iyo bogaadin u diray ciida ballaaran ee Ciid al-Fitrida awgeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland madaxda kala duwan ee qaranka shacabweynaha Somaliland shacabka kala duwan ee gobolka Gabiley iyo degmada xuduudeeda Togwa Jaale bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta hambaliyada farxadda ciidan salaamaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland shacabka Somaliland ilaahay waxaan leeyahay bashbash iyo barwaaqo ciideedana inuu gaarsiiyo gaar ahaan waxaan salaamayaa dhammaan bahda waxbarashada ugu horeeyay wasiirka qaaligii waxaan kaloo salaamayaa mas'uuliyiinta gobolka Gabiley mas'uuliyiinta gobolka Togwa Jaale waxbarashada degmada Togwa Jaale dhammaan waxaan leeyahay farxad waad ku iideen ilaahay takalana inuu gaarsiiyo faan iyo farax waxaan kaloo leeyahay maadaama xanuunkan coronavirus-kana waxaan leeyahay ilaahay inaga badbaadiyo aad iyo aad waxaan ugu hambalinayaa gudida qaranka ee coronavirus-ka yaan aad ugu hambaliyayna iyo wasiirka caafimaadka oo inta badan gorobba u dadaala agaasimaha caafimaadka oo dhammaan taaba hambaliyaan u diray insha Allah hadii ilaahay dhaado waxaan leenahay bisheedana ilaahay faafan farax isku kan gaarsiiyo nabadna ilaahay isku soo celiyo bahdi waxbarashada ardaydiina ilaahay corona aad boorta noo saameeyay anaga marka run ahaan aad eegto xageega waxbarashada ardaydiyo meel ay fariistaan bala oo dalabadii gelina wax diiniga baranayeen gelina ay dawladii baranayeen intiiba waxay dhibaato haysata dhalinyartii meel ay ku kala faalasho male meel ay fariistaan male dhinacana Itoobiya meel loo talaabiyo meel loo gudbo miyadii ay tag ilaahay ku kala faalan lahayn uu naga xidhay marka waxaan leenahay ilaahay bal xadhigaas waxbarashada buu aad u sii saameeyay ilaahay corona naga dul qaadan leena ya si wanaagsan ilaahay noo soo celiyo anaga iyo ardayda ugu diraya farxadda ciida awgeed mujtamaca Somaliland gaar ahaan waxaan kaga salaamayaa madaxda qaranka oo ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxweynaha ku-xigeenka iyo marwadiisa iyo golaha wasiirada waxaan kaloo salaamayaa shacabka Somaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan gobolka Gabiley gaar ahaan degmada Togwa Jaale oo nahay waxbarashada mas'uuliyiinta bahda waxbarashada waxaan leeyahay ciid mubaarak aan salaamayaa oo kale bahda waxbarashada dhammaan Somaliland gaar ahaan gobolka Gabiley gaar ahaan degmada Togwa Jaale bahda macallimiinteedana aad baan u salaamayaa ilaahay farxadeeda caafimaad qaba inagu gaarsiiyaan leeyahay الله صلى الله عليه وسلم إلهي بمهدله إن سوق عرسيه عيد الفطر أدبنا ومهدنا قينا لما وحنا كسلام يا وقري مدحونا جبريل الصومالي مدحونا موسى به عبدي مدحونا قارن كجبريل الصومالي وحنا كان بلينا يعني وأبادي عافاتك هذيا وزيرك عافاتك وإسنا إن آد والله ودالية إسنا وحنا كنا بلينا يا قاسمها جود مستر حرقية وإسنا كدري ديلي كدري warbixin maalinlaha ku daray qurbo xalku xanuunku marayo isna waan ku hambaleynayaa waxaan kula hambaleynayaa boohinta caafimaadka ee heeganka ugu jira si ay ummadooda ay wax u sheegi lahaayeen u badbaadinayaan ilaahay badbaadiyay ay laakiin ummadooda ay u sheegi lahaayeen caafimaadku qaabku yahay farxasha 24 saacadood waxaan ku jirnaa heegan faranti ma ku jirnaa anagu maanta waxaan la midnahay ciidanka ku jira boohodlo kale ayaan ka midnahay waxaan leeyahay markaa ciid mubaarak baan leeyahay waxaan leeyahay adduunka xanuunka ilaahay baa keena laakiin waxaan leeyahay waa in xanuunkan farxalka lagu dadaalo oo dikriga ilaahay lagu dadaalo oo ummad alla ka cabsiga ka dumika ka miibsan wax kasta dad islaamina nahay warta adduunyada wixii lagu qurun baa helaya laakiin waxaan leeyahay alla ka cabsiga lagu dadaalo waxaan kale oo salaamayaa Som News oo nagu soo booqday degmada Togwa Jaale waxaan leenahay sida aad wanaagsan ee wacyigelinta xanuunada coronavirus aad dadkiina aad loo wadaagaysaan aad baan inagu mahadnaqayaa waayo maanta waa halgan maanta waxa lagu jiraa in gacmaha la isqabsado haday caafimaad tahay haday ciidan tahay haday shacab tahay in ciidan in la isqabsado muhiima waxaan leeyahay Som News wad mahadsantihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal ilaahay naga aqbalo wixii aynu saamaanta soonka aan soonnay aad baan salaamay salaam Muuse Xuseen Xasan Som News TV degmada xuduudeeda Togwa Jaale